kulanti wacan wanaagsan saaxiibadan ku saaxiibnay jalaalkeena ee xulka wararka maalin wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale oo channelkeena xulka wararka alaab halkaan idinkugu soo bandhigo xogaha qarsoon siraha iyo macluumaadada ugu waaweyn ee Soomaaliya maanta qodobada wararka ugu waaweyn ee channelkeena xulka wararka oo idin soo bandhigayna waxaa kamid ah Reesaraha Soomaaliya iyo xubnaha la socdo maanta ku wajahan magaalada Cabud Waaqi wafdi hordhac oo ah magaaladaasi ku sugan madaxweyne xaafid Rasaaq Kheyr oo xalay kulan waqti badan qaatay ku yeeshay madaxtooyada Cadaado al-shabaab oo deegaanka Toortooro ku toogtay nin oday ah oo 75 sano jira dowladda Soomaaliya oo sheegtay in la joogo waqtigii la bilaabi lahaa wada hadallada maamulka Soomaaliland ee dowladda Soomaaliya booliiska Soomaaliya oo sheegay in Muqdisho ay ku dileen nin hubeysan oo ka tirsan al-shabaab hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha Amnesty International war ka soo saartay 3 xubnood oo shalay lagu xiray magaalada Hargeysa qaramada midoobe oo muddo kordhin u sameysay howlgalka nabad ilaalinta ee Darfur iyo dowladda Sacuudiga oo maxkamad soo taagtay haweeney u dooda xuquuqda dadka naafada markale subax wanaagsan waa 28 June 2019 diyaargarowga wararkaas oo dhan inaa saaka aad dhageysataan magacaygu waa Maxamed Abuukar Dabaashan waxaa soo kormaraya wararka la xiriira arrimaha galmudug ee Reesaraha Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ku wajahayay magaalada Cabud Waaqi wafdi hordhac oo shalay ay gaareen magaalada sidoo kale kulan waqti badan qaatay ayaa xalay ka dhacay madaxtooyada Cadaado Reesaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyr oo wali ku sugan magaalada Cadaado ayaa kulan gaar ah waxa uu xalay u la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaafa kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxa ay kaga hadleen sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen dowladda federaalka ee maamulka Galmudug iyo in sanadkanba la soo afjaro khilaafka muddada dheer ee ka dhex jira hay'adaha kala duwan ee Galmudug sidoo kale labada mas'uul ayaa ka wada hadlay sidii ay deegaanada Galmudug ay kaga dhici lahayd doorasho loo dhayahay qayb ay ka dhaqda dhamaanba dhinacyada isku haya maamulkaasi Reesaraha Soomaaliya ayaa ugu mahad celiyay madaxweyne xaafid doorka uu ka qaatay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha mushkiladaha ka aloosan ee Galmudug iyo waliba aqbalaad la xiriirta doorasho inay ka dhacdo deegaanada Galmudug walow aan isla meel dhigin oo la isku khilaafsan yahay halka ay ka dhici doonto doorashada madaxweynaha Galmudug madaxweyne xaafid ayaa hore u shaaciyay in doorashada madaxtinimada Galmudug lagu qaban doono magaalada Cadaado halka dowladda federaalka ayna dhankeeda hore u shaacisay in doorashada ay ka dhici doonto magaalada Dhuusamareeb waana meesha la isku khilaafsan ilaa hadda aan xal laga gaarin laakiin kulankan dhexmaray Reesaraha Soomaaliya iyo waliba madaxweyne xaafid ayaa ahaa kulan waqti badan qaatay xalay labadooduna u gaar ahaa ayna ka wada hadlayeen qorshaha la xiriira sidii loo soo afjari lahaa khilaafka waqtiga dheer ka dhex jira maamulkaasi isla Reesaraha Soomaaliya iyo xubnaha la socda golihiisa wasiirada ayaa maanta la filayaa inay gaaraan magaalada Cabud Waaqi gobolkaasi Galgaduud waxaa shalay magaaladaas gaaray wafdi hordhac ah waxaana hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi iyo waliba xubno ka tirsan wasiirada Soomaaliya Carabi oo ka dhoofay magaalada Muqdisho waxaana safarkiisa ku weelinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Maxamuud Cabduqaadir Hilaal iyo xubno kale oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa kamid ah xubnaha sida weyn soo horjeeda siyaasadda madaxweyne xaaf taasoo keentay in maamulka laba dhinac u kala jabo oo ay ku kala sugnaadaan Cadaado iyo Dhuusamareeb laakiin hadda waxaa muuqata in siyaasadda Galmudug ay yeelatay waji kale xildhibaan Faarax Cabdi Xasan iyo waliba wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabduqaadir Hilaal iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi ayaa 3 xubnood ee ku sugan magaalada Cabud Waaqi halkaas oo ay ka shaqeynayaan sidii ay maanta magaalada u soo gaari lahaa Reesaraha Soomaaliya ayagoo la hadlay warbaahintan waxay yireen waxaan aad u salaameynaa dadka magaalada Cabud Waaqi shacabkayagii xalaaleed ee aanu matalaynay siyaasadda oo ku faraxsanaa inaan idin soo joongarayno idin nimaadno haddii ilaahay idmo berri kaliya maahane maalmo badan baanu idinla sii joogi doonaa waxaa ugu horeeya oo aan u nimid soo dhoweynta ra'iisul wasaaraha inaan kala qayb qaadanno muddo dheer aan imaan gobolkan hadda 5 bari jooga magaaladana berri ku soo wajahan haddii ilaahay idmo aad baan ugu faraxsanahay soo dhoweyntaas inaan kala qayb qaadanno waa ka dambayn doonaa hawlo badan oo dambe oo ka dambeeyeen muxuu ahaa haddii ilaahay idmo wada qaban doonaa waxaan rajaynaynaa in si qurux badan loo soo dhaweeyo wafdigaas ballaaran ee ra'iisul wasaaruhu hogaaminayo deegaankan dadkiisa magaaladan Cabud Waaqi si wanaagsan loo soo dhaweeyeen waxaan ahay wafdi ballaaran ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyr halkan ayuu iman doonaa waxaan u nimaanay inaan u gogol xaarno
oo aan soo dhaweyno waxaan rajaynayaa in si wanaagsan ku soo dhaweeyaan ra'iisul wasaaraha dadka halkan degan runtii waxa sharaf noo ah maanta inaan soo gaarno degmada Caabudwaaq annagoo ka imaanay safar aan shaqo ugu maqnayn muddo magaalada Muqdisho oo runtii howlahaas aan halkaas u aadnay ay ahaayeen arrimaha galmudug iyo maaragtay xaaladda sida tahay waxaad dareesantahay galmudug arrimaheeda maaragtay inay meel fiican marayaan waxyaabo badan oo isbedeleen xaaladaha soo dhawaan doonaan haddana waxaan ku soo aadan ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya noogu imaan doona magaalada Caabudwaaq asagoo u kalaya arrimaha ka jira galmudug dadka Caabudwaaq iyo bulshada Caabudwaaq waxaan ka codsanaynaa inay ra'iisul wasaaraha si fiican u soo dhaweeyaan u sheegtaan baahidooda waxa ay qabaan magaalada Cadaado ayaa sanad kadib waxay la circiiraysaa wufuud kala duwan oo dhinacyada siyaasadda isku haya galmudug u badan kuwaas magaalada ku sugan labada habeen ugu dambeysay wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa maanta la filayaa inay gaaraan magaalada Caabudwaaq halkaas uu kula kulmi doono dadka ka soo jeeda magaaladaasi waliba xubnaha kale ee hordhac u ah maanta waa shalay gaaray magaalada Caabudwaaq wararka la xiriira galmudug haddii aan intaa kaga gudbinayno qodobada kale wararkeena ku jiran waxaa ka mid ah al-shabaab ayaa deegaanka Torotoro waxay ku toogteen nin oday ah oo jiray 75 sano macluumaadka warkan Cabdiqaadir Jakarta ayaa dhameystiraya al-shabaab ayaa goob fagaara ah oo ku taala deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa shalay gelikii dambe ay ku toogteen oday jira da'da 75 kaas oo ay ku eedeeyeen inuu isla wada guursaday gabar iyo hooyadeed boqolaal ka mid ah shacabka deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose ayay al-shabaab isugu yeereen iyadoo halkaas ugu soo baxeen isla markaana ay kor ka daawanayeen toogashada ee ururka al-shabaab xubno ka tirsan ay ku fuliyeen odayga jira da'da 75 kaas oo magaciisa lagu sheegay Abshir Maxamed Cabdi isla markaana lagu eedeeyay inuu hal mar wada guursaday gabar iyo hooyadeed garsooraha maxkamadda al-shabaab ee deegaanka Torotoro ayaa goobta ka sheegay inuu maxkamad u soo dacwooday nin adeer u ah gabadha odayga guursaday oo lagu magacaabo Xasan Khaliif Aadan isagoo ku eedeeyay in gabadha hooyadeed oo hore u qabay haatanna uu gabadha guursaday isla markaana uu ka dhalay hal cunug dhacdadaas oo ka mid ah kuwa ku cusub dalka Soomaaliya ayaa waxa aad ula yaabay dadka ku nool deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana xusid mudan in hore al-shabaab ay dil toogasho ugu fuliyeen dad ay ku eedeeyeen falalka duwan oo isugu jira in markaasi ay hore u geysteen dilal iyo inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dagaal xooggan kula jira ururka al-shabaab isla markaana ku sugan deegaano badan oo ka tirsan gobolada bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya booliiska Soomaaliya waxa ay shaaciyeen in xalay magaalada caasimadda ay Muqdisho lagu toogtay nin hubeysan oo ay sheegeen inuu damacsanaa dil askari ka tirsan ciidanka booliiska u geysto ciidanka booliiska ayaa degmada Boondheer xalay waxa ay ku toogteen ruux hubeysan oo ka tirsan al-shabaab kaas oo baskoolad wato damacsanaa inuu dilo askari ka tirsan ciidanka booliiska taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Jenaraal Zakiyo Xuseen Axmed ayaa sheegtay in ruuxan ay la toogtay uu doonayay inuu dilo askari ka tirsan ciidanka booliiska balse asaga markii dambe la toogtay israsaasen ayaa halkaasi ku dhaxmartay ninkan hubeysan iyo waliba ciidanka booliiska taas oo ugu dambeyn taliye Zaki ay sheegtay in asaga la toogtay ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waxay ay kordhiyeen howlgallada iyo waliba qorshaha lagu adkeenayo amniga caasimadda iyadoona maalmihii dambena magaalada Muqdisho ay ciidanka booliiska ay ka wadaan howlgallo isdaba joog ah laguna xaqiijinayo amniga magaalada inkastoo magaalada wali mararka qaarkii ay ka dhacayaan qaraxyo ay mas'uuliyadooda ay sheeganayaan ururka al-shabaab dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in markan la joogo waqtiga ugu habboonaan ay tahay xilli ay wada hadli lahaayeen dowladda Soomaaliya waliba maamulka Soomaaliya si loo baadi goobo mideynta labada gobolada waqooyi iyo koonfur xilli lagu guda jiro toddobaadka xorriyadda Axmed Tifo ayaa warkan sii dhameystiraya Maxamed Cabdi Xayir maareeye wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in muqadas ay tahay midnimada Soomaaliya lana doonayo in ay wada hadlaan maamulka Somaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya wixii madmadow jiraana la xalliyo miiska wada hadalka iyadoo la fadhiyo Maxamed Cabdi Xayir maareeye ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay in ay ka garawdo cabashada maamulka Somaliland ay qabaan waxaana uu sheegay wasiirku in maamulka Somaliland uu yahay dal qayb ka ah waa dhul qayb ka ah dalka Soomaaliya
isagoona sheegay in toddobaadka xurriyadda hadda lagu guda jiro ay dowladda Soomaaliya ay u xilsaartay guddi gaar ah oo ka shaqeyn doona wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya iyadoo ay jirto in dhowr jeer la isku dayay in la wada hadalsiyo labada dhinac ha yeeshee gaabis badan u yimid waxaana uu sheegay in hadda madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay ku guda jiraan sidii ugu macquulsanaa ay ku wada hadli lahaayeen labada dhinac maamulka Somaliland looga xalin lahaa tabashooyinka yar ay qabaan midnimo waxa laga hadli karayo kaliya waa intii 2012 ilaa hadda labadii dawladood ee midna hadda jirto midna ka horeysay waana laga hadlo wala bilaabay Turkiga lagu kulmay intaas oo jeer maybe wax soo saarku waa yar yahay dadka Soomaaliyeed sidoo u jecel yahay inay u dhaqsato way u gaabisay sidii dawladnimaduba u gaabisay ama dhaqanka Soomaaliyeed ha noqdo laakiin waa lagu mashquulsan yahay waxaan se taageersanahay runtii aan dhihi lahaa ereyga uu weydiiyay Maxamed qorshe ma jira oo midnimada oo process oo socda waa jiraan dad wada hadallada inay wadaan u xil saaran wax aan isleeyahay aniga laftigaygu way ka dhiman tahay oo maadaama 60kii gobolada waqooyi iyagu all the initiative-ka midnimada xooggeeda la yimaadeen oo sacrifice u sameeyeen in dadka halkan iyo dawladda federaalka ahi sacrifice samayso oo iyadu sidii 60kii oo kale sacrifice samayso ama combo ay samayso iyadu qorshe adag oo dadka walaalaha ay cabanayo cabashadooda aan aaminsanay wax inay ka jiraan meelaha qaarkood inay u samayso sacrifice weyn way dhiman tahay waxaana dhihi karaa wali caqabadaha dawladda ku wareegsan baa dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Somaliland ayaa la filayaa in ay yeeshaan wada hadal lagu qancay wada hadallo la doonayo in labada dhinac la isugu keeno iyadoo dowladda aynu walaalanahay Turkigana ay u saartay ama ay u xil saartay ergey gaar ah oo Kambeega lagu magacaabo inuu ka shaqeeyo arrimahaasi waxaana toddobaadkan gudihiisa soo baxday mar in labada dhinac ay ku wada hadli doonaan magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya sida uu sheegay wakiilka maamulka Somaliland ee dalkaasi Kenya fadhiya hayeeshee waxaa diiday arrintaasi oo ku sheegay warqadaha ama warqada baraha bulshada wareegeeday agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya isagoo ku sheegay in ay tahay in laga wada tashto marka hore goobta iyo waqtiga la qabanayo wada hadallada maamulka Somaliland iyo Soomaaliya wali warkiisa waxnimo ayaad maqlaysaan qeybaha kale wararkeena ka hareena waxaa kamid ah hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee la yiraahdo Amnesty International ayaa war ka soo saartay 3 xubnood oo lagu xiray magaalada Hargeysa maamulka Somaliland ee xabsiga ay dhigaan xukuumadda Somaliland ayaa waxay xabsiga ay dhigtay intii u dhaxaysay bilaha Abriil iyo May wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon Jamaal Cabdi Maxamuud iyo waliba gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Sadiiq Dhame hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegaysa in saddexduba ay xarigooda loo cuskaday in baraha bulshada ay ku baahiyeen qoraalo ay xukuumaddu u aragto in qatar ay ku yihiin Somaliland iyo waliba mas'uuliyiinta xukuumadda Muuse Biixi Amnesty International oo si toos ah qoraal ugu dirtay xeer ilaalinta guud ee Somaliland ayaa Xasan Axmed Aadan sheegtay iyo waliba in Cabdimaalik Muuse Coldoon oo labaduba 17 bishii Abriil la soo xiray lagana soo xiray magaalada Burco laguna eedeeyay in Facebook ay ku dhaleecayeen madaxweynaha sidoo kalena propaganda liddi ku ah Somaliland iyo warar been abuur ah oo ku saabsan xaaladda Somaliland ay ku baahiyeen bartooda Facebook waxay sidoo kale ay sheegtay in Jamaal Cabdi Maxamed oo shaqaale ka ah wasaaradda arrimaha gudaha xafiiskiisa laga soo xiray 24 Abriil ayagoo lagu eedeeyay in Facebook-isa uu ku dhaleeciyay habka ay shaqada u socoto iyo waliba booliiska hay-adda Amnesty International waxa ay sheegtay in maamulka dadkaas ay yihiin kuwa dambiyadooda aysan mudneen in xabsiga loo dhigo sida hay-addu ay sheegtay qoraalka Jamaal ayaa hadda waxa uu yahay kan sida hay-addu ay sheegtay xubnahan oo loo haystay qoraallo ay kusoo qoran bartooda Facebook waxay hay-addu xeeraalintu ka dalbatay in dadkaas xorriyadooda loo soo celiyo bishii May ayay ahayd isla sanadkan markaas oo Maxamed Sadiiq Dhame oo ah gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani asna xabsiga la dhigay kadib markii bartiisa
facebooka uu ku cambaarayay xaalada degdega ah ee xilliga madaxweynaha uu kusoo rogay qeybo kamid ah waa 3 degmo oo ka tirsan gobolkaasi Sanaag madaxweyne muuse bixi xilliga xaalad degdeg ah u galiyay maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa waxaa gudoomiye dhame ku xukuntay 6 bilood oo xariga kadib markii ay ku eedeeyeen in uu u gafay sharafta madaxweynaha Soomaaliland sida maxkamaddu shalay oo laga shaaciyay oo khamiis ah hay'adda Amnesty International waxa ay sheegtay in 3 xubnood ee xariga qabsaday ama la xukumaba dhamaantood yihiin kuwa sifo sharci darro ah ay u xukuntay maxkamadda ugu dambeyn hay'adda ayaa waxa ay ku baaqday in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo sii daayo Cabdimaalik Muuse Coldoon Jamaal Cabdi Maxamed iyo waliba Maxamed Sadiiq Dhame oo dhamaantoodba xukuumadda Muuse Biixi ay shalay waa xabsi dhigtay oo xukunna ay ku dhaceen ugu dambeyn qaramada midoobay waxay muddo kordhin u sameysay howlgalka nabad ilaalinta ee Darfur golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa u codeeyay howlgalka nabad ilaalinta ee gobolkaasi Darfur ee dalka Suudaan in uu sii socdo waxaana howlgalkan lagu kordhiyay ilaa iyo bisha December iyadoo markii hore qorshe ahaa in bisha November ciidamada qaramada midoobay ay ka baxaan ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa ka bixi lahaa Darfur waxaana waana la hakiyay maadaama xaaladda Suudaan aysan ilaa hadda saldhigan qaraarkan ayaa waxaa iska kaashanaya wadamada Afrika dalalka reer galbeedka dhaca iyo waliba Ruushka iyo Shiinaha oo ayna isku dhinaca labada sano ee ugu dambeysay golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa waxa uu aad u codeynayay in la dhimo howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Darfur sababto waxaa xilligaas lagu micneeyay xasilooni gobolka ka muuqatay tirada ciidanka nabad ilaalinta ee gobolkaas ayaa horey loo dhimay 57% balse dhicidii madaxweyne Umar Xasan al-Bashiir iyo waliba ammaanka xaaladda Suudaan oo faraha ka sii baxay ayaa waxa ay hadda qasbaysaa ayaa lagu yiri warbixinta in waqtiga loo kordhiyo ciidanka Darfur ku sugnaan doonaan Ruushka iyo Shiinaha ayaa waxa ay ku doodayaan in hoos u dhigida tirada ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobay la sii wado hoos loo dhigo ay keeni karto qalalaaso halkaasi ka dhaca in xaaladda amniga oo faraha ka sii baxan waxa jira warar sheegaya in ciidanka dowladda Suudaan ay weeraraan dadka rayidka ah lala dhaco saldhigyo ay dadka rayidka ay dhac u geysan saldhigyada ay ku leeyihiin ciidanka nabad ilaalinta isla markaana iyo ciidanka kale ee militariga Suudaan ay gacanta ku hayaan la tilmaamayo in ay tahay meelaha ugu xasulaan ee gobolka Ruushka iyo Shiinaha ayaa waxa ay aqbaleen in tirada ciidanka nabad ilaalinta iminka ku sugan Darfur intii hore ay ahaato balse aan la sii koobin ama aan waxba laga dhimin 4 bil ay soo socota wadana wararkaad ka daawanaysan channelkan xulka wararkana daawadeen halkaas aan ku soo gabagabeynayna daawadaad ku cusubta channelkan subscribe dhe qaybta hoose ee commentiga nugula wadaag aragtidaada